asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada xinjiraha jacaylka. Maanta waxaan soo gudbin doonaa qisa xanuun badan oo ay magaceedu tahay afar gaabnay. Ma shaqeeyo oo subaxii iskuul ayuu dhigtaa, galabkiina kubad ayuu dheelaa. Waana xaasle sanadkii koowaad ee guurkiisa aan weli u dhammaan. Waxayna isaga iyo xaaskiisa, walaaladii iyo waalidkiiba wada degan yihiin hal guri oo ka kooban 6 qol. Ma jiro reerka wax u kala baxsan oo raashinka faamilka oo idil hal meel ayaa lagu kariyaa. Qalinle maadaama uu shaqayn, isaga iyo xaaskiisa faamilka ayay ku weel yihiin. Qalinle maalmihii hore ee ay xaaskiisa cusbayd waxaa loo muujiyay weji furan iyo dabeecad wanaagsan, laakiin markii ay bilooyin qoys ka mid ahayd ayay mar uun isbeddel kala kulantay gabadha dumaashiyaalkeed. Haba ugu darnaatee gabadha ahaan jirta 18 ahna gabadha qoyska ugu yar iyo xaaska Qalinle ayaa isku qabtay hawl maalmeedka guriga. Gabadhana magaceedu waa Farxiya, waxayna had iyo jeer jeceshahay inay adeegso gabadha walaalkeed qabo, weliba si ku amartaagleyn ah. Xitaa mararka qaar waxay gabadha dumaashiyeed ku tiraahdaa, naa maxaad qadasaan ugu daahisaa, ninka ku qabo ayaa kugu dhib qabo. Cusbada ayaad raashinka ku badisay, reer baadiyaan bariiska furfurka karin aqoonin ayaa tahay, iyo wax la mid a. Hooyadu waxay aad u jeceshahay gabadha yaraankeeda ah, lagamana maro xaggeeda oo qaladkeeda waa sax, saxdeeduna waa sax. Marar badan ayay seegeeda iyo reerkeeda kala qarisay, balse markii ay u dulqaadan weysay ayay seegeeda u sheegtay. Isna waxa uu tegay hooyadii oo ku yidhi, hooyo, gabadhay la dhalatay waxay doonayso inay reerkayga dumiso, ee igala hadal, gabadhaan qabo inay xushmayso ayaa waajib ku ah. Hooyadii ayaa ku jawaabtay, gabadheeda yaraankahii ah ma qaldana, ee midaad qabto ayaa edab lahayn, ee labadiinuba israaca. Qalinle markii sidaa la yidhi, wiish ayaa ku yeeray. Waxa uuna ogaaday in hooyadii iyo walaashiiba isku raaceen in xaaskiisa la xumeeyo. Waa uu ka soo tegay meel gooniha ayuu fadhiistay, isagoo ilintu ka qubanayso ayay ereyadani carabkiisa ku soo dhufteen. Qofna nabad ma helo ilaa uu ka xoroobo hoos joogga hoygii uu ku soo koray iyo ka dareen dheeraanshaha walaalahan jeclayn tixgelinta dumaashadood. Marba haddii aadan shaqayn, waxaad la mid tahay carruurta sabiga ah ee wax laga siiyo, ugumana sii jirto markaad xaas leedahay. Xor ma tihid oo mar walibana xariga ayaa kugu shakaalan. Mas-uuliyadda nafley marka aad qaado waxaa kugu waajib ah marasho iyo masruuf. Intaana maanta ma awoodo oo waa tan weli i hoos dhigtay hoygii aan ku soo koray. Waxaase iga sii daran waa tan hooye iyo walaashay isku raaceen iyo xaaskayga ay tahay qof xun. Alla lacagay. Isaga oo fadhiya albaabka qolkiisa ilina ka qubanayso ayay xaaskiisa soo gaartay dhawaaqa fiiqfiiq. Bannaanka haddii ay u soo baxdaba waa saygeedii oo caloolxumo iyo murugo darteed la oynaya. Ilintii indhihiisa ka timid qoysay garan cad oo uu xidhnaa. Intay madaxiisa kor u qaaday ayay faraheeda aad moodo in ruux kaleba loogu talagelin ugu tirtirtay ilinta ka qubanaysay. Waxayna iyada oo sabrisiinaysa ku tiri, waan ogahay ilinta kaa qubanaysa inay tahay wax ku yimid caro kugu raagtay, taasoo ay kugu beertay dumaashaday oo aan jeclayn isla joogeenna. Laakiin ma ogtahay wax walba oo madaxaada igu gaaro inaan leeyahay dulqaadkeeda. Waan ogahay inaan layga jeclayn guriga aad i keentay. Waxaa taa tusaale igu filan sida maalin walba layga macaamiilo. Laakiin waxaasoo dhan waxaan ku iloobayaa jacaylka dhabta ee aan kuu qabo, kaasoo abidaan ka tirmi doonin qalbigayga aan waayo ku hibeeyey. Waan ogahay oo aad adiguna la socoto sida wanaagsan ee la iga soo dhoweeyey gurigiina maalmihii hore ee guurkiina. Laakiin waxaan isweydiin mudan, maxaa hadda isbedelay? miyaan ahayn anigii? Mise dhaqanka reerkiina waa xiise iyo xumaan? Intay ninkeedii garabka soo qabatay ayay qolka soo gelisay, iyada oo mar kale samirsiinaysa ayay ku tiri, waxaan ku qanacsanahay nolol waliba oon aniga iyo adiga iskula sugannahay, sababtoo ah anigoo og inaadan adiga waxba haysan ayaan sidan kugu soo raacay. Weliba iyagoo waalidkay aysan ku qanacsanayn nolosha aan geli doono, maadaama ay ogaayeen inaan albaabka ka geli doono guri. Tiina way dhacday. Waxaan ogaa maalmo ka hor guurkeenna in ugu dambayn markaanu aqal galno aad keeni doonto guriga waalidka, aanan noqon doono isku weel aniga adiga, waalidka iyo walaalahaba. Tiina waa tan haatan ku suganahay.
waan ku qanacsanahay inaan haddii aad qadayso kula qado, haddii aad quudanaysana aan kula quuto, laakiin kuma qanacsanayn dartay waxaana kugu dhacaan oo ilintaada oo aan dareemayo xanuunkeeda la qubo. Waxaan soo xasustay orahdii Soomaaliyeed ahayd, albaab furan lama galee qalbi furan ayaa la galaa. Laakiin waxaan haatan ii caddaatay inaan albaabka furan un soo galay ee aan qalbiyo furan gelin, sida dumaashiyaday iyo hooyaday. Iyana markeedii ayay gabadhii ooysay. Qofba qofka kale ayuu isku dayay inuu aamusiiyo. Markay halkaa joogto, soo ma dhihi karno jacaylka noocani waa alcadaalo, marba haddii shakhsi waliba si gooniya indhihiisa inanuga timiday. Bilooyin uunbay ahayd intii ay wada joogeen, khilaaf sababtiisa ay lahaayeen hooyadii iyo walaashihii ayuu si cara leh kagala duldhacay afadiisa samirka badnayd, taasoo sababtay inuu 2 dalqadood ku furo. Dabadeed qalinle wax ka yar bil ayuu naag kale xusul baruur ah oo ganacsi ku leh magaalada guursaday, balse nasiib darro waxba maysan u dhalin oo waxaa ka soo baxay xaqii xaaskiisii hore. Guurkan dambe ayaa ka ahaa mid uu kaga baxsanayay cadaadiska reerkiisa maadaama uusan haysan dhaqaale uu isku furan karo. Dhanka kale xaaskiisii oo furayna iyana nin kale ayay guursatay, waxayna dhexda ka gashay barwaaqo. Afgaabnideedii, xishoodkeedii iyo samirkeediiba Allah ayaa kula garab galay oo wax walba oo ay doonaysay. Haatanna waa haweeney Alle ugu deeqay 3 carruur ah, halka qalinana uu haatan wax carruur haysan. Haddii halkan soo gaadhay, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saartid, like-na saartid muuqaalkan si uu u gaadho asxaab badan sida adigoo kale. Sheer galeena lana wadaag asxaabtaada.